shay badan ayaa maalmahan noqday qaariyo waqtigeena xadaya taasi dhibaato ma laha haddii ay shayadaasi faa'iido inoo leeyihiin nolosheena iyo aakhiraba mushkiladu kaliya taa waxa weeye waqti lumis kala tagsanaan maskaxeed iyo ka mashquulitaanka daacadka aynu nafaheena weydiino imsa jeer ayaynu maalintii dambi dhaaf weydiisanaa Allah hagaag waxaynu ognahay sida caadada ah inay habeenka iyo maalintu ay kugu dhaafayaan digri la'aan waxaana ugu fudud istighfaarta laakiin ka soo horjeedka waxa laga yaabaa inayna saacadina marin haday martana waxaynu u degdegaynaa aaladaheena oo aynu fiirinaynaa qofka soo diray iyo ka hadaaqaya waxaynu ku qoslaynaa sheekooyinka waxay ahayd oo fiicnaan lahayd in aynu u oyno nafaheena oo aynaan qoslin ila dheh astaghfirullah 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 ma garanaysaa inta uu ka qaatay dhihitaanka kelmadan 4 ilbiriqsi haddaba markaad Allah dambi dhaaf weydiisanayso 100 jeer waxay ka qaadanaysaa 80 ilbiriqsi yani 1 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi intaas oo dhan oo aynu mooganahay miyaad kala baqaylaysaa naftaada 5 daqiiqo oo istighfaara taasoo aad iskaga tiraysid dambiyadaada oo aad ku daahirinaysid qalbigaaga kuna cadrinaysid maalintaada kuna qoynaysid carabkaaga kuna raali gelinaysid Allah faqultu astaghfiru ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا waxaynu ku sugannahay casri aaladuhu ay saydarada leeyihiin istighfaartu waa cibaado si yaraanaysa aynu soo celino soo nooleynteeda أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا